الرحمن الرحيم الحمد لله إله النبتكون سوء عليي النبغض سوء كان ما هذا النبت قليو هي نحريس هي أمني هي دولة دنيا عافات بين السيوة ما هذا وحن مرة يصير حيتوه كبر هالكرت كانت تقني ما أنت ولا حيتوه والله صعدان كيجوا آد بعد وقعد ميديو هودان waxaan u maleynayaa wixii waraan sidii inaan hore u sii dhageysteen haddana waa waajib dee in la isu warramo marka wararku xogay ay midiyo aad u xiisa geliyaan ay xasaasiyad u geliyaan socdaalkaan ku tagnay si ka warqabtaan waxaa martiqaad dawladda Kenya ayna siisay oo madaxweynuhu martiqaaday si wacan markii aanu tagnay markiiba lagu baraajirin ee madaxweynaha waa la kulanay si wanaagsanna waana loo soo dhaweeyay qodobadii aanu ka wada hadalnay dhammaantood waxaanu soo galnay miidiyaha oo u aragtay waxa sharaf ah in dowladda Kenya markii u horeysay inuu hadal wada galnay ama heshiisyo aynu si wada jira u soo wada saaray communique laba dowladood oo aynu publica u soo bandhignay wixii aanu kula hadalnay qodobadiina waa wada haysaa waxaan u aragnaa inay ahayd guul Soomaaliland soo hoytay waayo dawladaha jaarka ah dawladda qura ee aynaan horay heshiisyo badan ula gelin inkastoo xiriir jiray oo madaxweynayaasheenu tageen cigaal baa tagay Allah u naxariistay oo daahriyaalaha tagay laakiin ma aynaan gelin heshiisyo waaweyn xiriirkeennuna ma xumayn oo xiriir joogto waa lahayn laakiin isdhexgal iyo wada shaqayn ma aanan lahayn wixii xoogga la saaray dhinac walba waa ka hadalay mustaqbalka ganacsiga waxbarashada maalgashiga wixii la isku dhaamo dhan in la isweydaarsado nabad lagu wada dhaqmo geeskan oo xasarad badan aanu ku noolahayna nabad laga raadiyo ayaanu ku heshiin waxba warkii idinku cilmaayo waa akhrideen laakiin qolada jiraadku waxay iska jecel yihiin haddana nin wala meel baa yar xoqanaysee tu gudaha iyo tu dibadda waxba yar xoqanayee inaanu taa iska wareysano waa ogola markaa su'aalahan idin sii deynaya way madaxweyne hadan su'aasha ugu horeysa hadda ku diibo waxaa jira qodobada la soo saaray labadii dhinac soo saarteen mulkeygii waa la wada akhriyey hase haatee qodobka ictiraaf Kenya maxaa ay ka tari kartaa mise ka wada hadasheen wuu ku jiraa warashiga wuxuu kugu jiraa waxa laga wada hadlayaa wixii laba dal u dana maalin horena waxay weydiinayaan ma BBC mise Voice oo yiri ictiraafka miyaa ka hadlaysa cid kasta inuu u tagno qof kasta oo ajnabiya oo mas'uula oo siyaasad meel ka hayo ay Soomaaliland aragto adigana ku dhaho qof aragto adigaaga saad dad kulanto waxa diirto Soomaaliland maxaa loo ictiraaf waay ardayga meel tagaa wuxuu maxaa loo ictiraaf waay marka dhalinyaradii imika joogtay waa saaray oo qofkii qof salaamo leeyahay ninku arko ee xil haya wasiir agaasime ambassador qof kasta Soomaaliland wuxuu ku bilaabaya Soomaaliland maxaa loo ictiraaf waay marka qoladeen gabadho maxaad u maleeyay hadalka haddii aan laga bilaabin ictiraafku waa quraan aan bisikii lagu bilaabay cid kasta oo u tagno marka waa laga wada hadlay laakiin ma waxaad filaysaa wixii lagu wada hadlay arrintaa laga yidhi inaan miidiya kaaga sheego taasina waa maya kuwa shaqaysa dawladda way madaxweyne hadda ku weydiiyo laba su'aalood baan labada su'aalood waxa weeye su'aasha koowaad waa markii labada dawladda federaalka ee Soomaaliya wadana tagteen xiriirka u jirto diblomaasiyadeed idinku Soomaaliland ahaan mowqifkiinu muxuu seed aragtaan su'aasha koowaad talabaad dacwad bay Soomaaliland ahaan idinka gudbisay shir baana Djibouti lagu qaban doona urur weynaa IGAD ee gobolku 20ka bishan oo maxay dareenkiina ku aadan halkaana horta dareenkan ku ay la yimaadeen qofkii aan u tagnaba inay cilaaqaadka u jiraan qudhadina waxay noo fureen albaab wanaagsan Soomaaliland waxay fureen albaab yar oo ictiraaf ku imanayo socdaalkeenu barno kulwa maalinba dawlad u meel loo shiriyo taasay ka tagayo Afrika dawladba way ka bixi inaguna uu degi doona anigu saasaan u arkaa dawladaha iyaga xiriirka jara Soomaa inagana maxaa lagu waajiba inaanu dawladdu bal la shiro oo arrinteena kala hadlo dawlad oran kartaa ay kala hadlaan arrinteena ma jirto binaad way isu baahay dawladaha waxaanu ku dhahnaa ma qasabno waxaanu ku dhahnaa waxaanu nahay Soomaaliland oo 30 sano jirtay oo sidaas waxaanu doonaynaa inaanu hadalno oo wixii aanu ka heshiin karnaa aanu ka heshiino
nabad ku wada noolaan ninku salaamiyaa diidaysa marka aniga taasa ay faran oo i dhiibteen idinkana waa faranta wariye arday baac mushtar qofna Soomaaliland xuquuqdeena caalamka waa ugu halgabaynaa qof safaarad iyo dawlad midaba wax laana Soomaaliland waa tan way socotaa way dhisan tahay waxay ku leedahay wax muddo qabsan karaa kayna wax muddo qabsan karaa masalan kan idhigay midaba saaray marka qoladan hadday nin walba ay ka didayaan meel waa galina waa ka didinaa Djibouti shirka waa igad buu ka socdaa hadda qorshaygu hore kuma jirin waxaan u maleynayaa hadee inay igad ka wada hadlayso waana dacwada qoladana geysay oo kale iyo saabsan doonta laakiin waa tagayna mid walba waa tagayna waa ka saarayna Soomaaliland qaadka mirooga waa ka jira oo diyaaradu ku yimaada meelaha Soomaaliland qayb ma taqaanay oo halkan Hargeysa waa ka soo degaa oo ma inaan mamnuucin qolo waliba wixii ay bushara haysay iibinaysa iyagu qaad bay hayaan kafee bay hayaan shaah bay hayaan xoolo waaweyn bay hayaan inagana wax rabo waxaan geerino waxaanu tacabno oo aynu geynal rabo mal rabo inaynu murano oo muruqeena laabno waxa weeye maxaad iga iibinaysaa bay ku leeyihiin 50 milyan baan ahay dalka saddexaad ee Afrika xagga dhaqaalaha ugu sareeya lahay marka South Africa iyo laga reebo iyo Angola waa dalka saddexaad ee ugu qarisan marka anigu maxaanu geeynaa ma kaftan ma hadal ma daayir isugu faano ma gabayada hore inaga laga reebo waxaanu geeynaa dadku waxay aaminsan in xiriirka Kenya ay Soomaaliland la yeeshaan dadka waaweyn taageen oo ay doonayso in Soomaaliya ay ku cadaadiso ama ay ku dhisato ninka tasmiin ma ima muuqato waxay taasi u muuqataa ninka Soomaaliland la cola ee doonaya hawsha qabsanaysa inuu yareeyo hoos u dhigo waxaan qabaa inuu xididadiisu dheeraan doonaan oo ay ku xiran tahay hadba saynu ugu fahamno iyo waxaynu kala iibino marka inaga igama aniga tooda waxay magaalada hadday sayaan laba dal bay sayaan marka tooda ka maray laakiin teenu inaga wadana mudane madaxweyne magacaygu waa Liibaan Ismaan waxa ka socda telefishinka Area haddii imika dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya ay heshiiyaan maadaama la leeyahay wax lagu cadaadinayaa arrintii wax lagu cadaadinayaa Soomaaliga lagu cadaadinayaa ma laga yaabaa in heshiiyo badan oo la galeen inaga baxaan oo maxaad u qaadan weyday halkaad ka qaadanayso waxa la leeyahay hadii la cadaadiyo asaasay maxaad u qaadan weyday Soomaaliya iyo Soomaaliland oo heshiiyay meesha way ka saarayaan qolka kale xiido oo mis way sakaraan maxaad maskaxaad soo sheegay tayar ugu sheegay xagga fiilada maxaad raacaysaa waxaan ku iri arrintaas guud oo uga hadal waxyaalaha detailkeena oo sirida deega filmisi media aan soo dhigo wax badan baan media aan u ogolay adiguna aad goosheena soo baarato واي مدن مدحوينه magacaygu waa Cabdirashiid Cabdiwaab waxaan weydiinayaa su'aal ku taxalluqda Soomaali siyaasiyiin Soomaaliland oo xilal Soomaaliland ka haya Muqdisho ay muddo 4 sano ama 5 sano intii joogaan ayay Soomaaliland cafi soo weydiistaan shacabka Soomaaliland arrintaasi waxay ku abuurtaa niyad jab siyaasigii Soomaaliya joogay ee Soomaaliland maalin walba lahaa waa qayb kamid ah Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliland ee doonaya qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland arrintaasi dhaawac bay ku keentay ka xukuumad ahaan maxay diga meel yaala siyaasiyiinta Soomaaliya taga ee haddana iyaga inta farsama soo hayaan halkan soo noqday warqadda cafiska loo fiday horta dee waa sharci noo yaala qofka Soomaaliland dalka meel kasta joogo hadduu dalka dambi ka galay iyo hadduu cid dambi kale inuu dambiga cafiska weydiisto ama wixii uu geysteen laga jaro oo uu dalkiisa ku soo noqdo caalamka oo dhan wadanimada dee qofka ka qaadi kartid qofka halkan u dhashay wuxuu xaq u leeyahay in laga jaro dambiga uu galay markaa sharciyadeena wax ka horreeynaado qofkii dalka khiyaameeyay in la ciqaabeen oo ay ka soo galin waa sharciyad imka ay u hawlgaleen laakiin marka hore sharcigan wuxuu ku dhisan yahay in qofka Soomaaliland gafa sharciga imka aanu haynaa in saamaxaad loo fiiro haddii aanu waxyaalaha qaar kood gelin dil ay ka mid tahay waxa xuduudda islaamka sharciyada islaamka lahayd marka waxaan u baahanahay raygaaga waan ugu waxyaa lafteeda ray wanaagsan laakiin inaanu madahan isku raacno oo aynu sharci ka soo saarno oo halkaas ka taagnaano baahna oo inaan hadhowto oran waa ina hebele
cuqaashii baa damiinatae ree hebel baa damintae la sii daayay inaan sharcigaa meel iskaga lalaabaan u baahana waana fikir fiican oo soo dhaweynaya